السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا مقال عصوب وانتنا وحن كهذي دونا داوديال مدحويني لبعض أمة الصوماليين الله ونحرستي عبد الرشيد علي شرماركي وحكونا الشيء دقمدا حرر ديري قبل كمدوك كل سقال بقولي سقاية تركي دقمدا حرر ديري ودوان لغو حرية خوارج تال شباب وحبر الشديد سهوس لحية سربك سوقاتي gudaha wadanka Talyaaniga gaar ahaan caasimadda Talyaaniga Roma. Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke wuxuu ku jiray ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SWL kuwaasoo dadaal weyn ugu jiray sidii Soomaaliya uga bixi lahayd gacanta gumaystaha. 1960 ilaa 1964 wuxuu ahaa ra'iisul wasaare xilliga Soomaaliya wuxuuna qabtay shaqooyin badan سيدي حستي تاريخته 1967 waxaa loo doortay madaxweynaha Soomaaliya kadib markuu ka guuleystay madaxweynihii koowaad ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde 15 Oktoobar 1969 isagoo 2 sano madaxweyne ayaa waxaa dilay askari ka mid ah ilaaladiisa xilli uu booqday magaalada Laascaanood oo xilligaas ka tirsan gobolka Togdheer haddana ka tirsan gobolka Sool. gobolka Sool ayaa 2 sano u dambeeyay waxay dagaal ku dhex mareen ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada badaniga ee ka soo jeeda magaalada Laascaanood. 22 Oktoobar 1969 6 maalin kadib geerida madaxweyne Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke waxaa xukunka dalka la wareegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana ay kursiga madaxtinimada saareen Maxamed Siyaad Barre sidaana ku noqday madaxweyne saddexaad ee Soomaaliya. madaxweyne Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke intii uu xilka hayay waxay wada qaateen kulan taariikhi ah madaxweyne Mareykanka waqtigaas John F. Kennedy. 27 November 1962 diyaarad sidii ra'iisul wasaare Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke ayaa caga dhigatay Washington kaasoo uu ku qaabilay dhigiisa John F. Kennedy. roogacas ayaa loogu goglay garoonka diyaaradaha salaan sharafna waa laga qaaday kadibna aqalka cad ayay u wada carraabeen iyadoo soo dhawoon iyo marxabo lagala horyimay. casho sharaftii ayaa xigtay beerta ku dhex taal aqalka cad ee South Lawn loo yaqaano ayaa loogu sameeyay casuumaad iyo soo dhaweyn iyo xarmo sharafaan aan nabcaadi ahayn. Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke Allah naxariistii jannaha ka waraabiye ayaa dadka Soomaaliyeed waxay ku tilmaamaan inuu ahaa mid ku suntan gobonimo wanaag intii uu xilka hayay. dowladda Mareykanka ayaa xilliga aad u dareenaysay inay Soomaaliya la samayso wada hadallo iyo isfahan iyo iskaashi xagga dhaqaalaha. daba Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke Allah u naxariistay wuxuu ifka iskaga tagay 15 Oktoobar 1969 isagoo 2 sano xilka hayay waxaana xilkaas kula wareegay noqdayna madaxweyne saddexaad. Allah u naxariistay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. haddaba intan bayn iskaga soo afmeeraynaa ka hadalka madaxweyne Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke. bulshada Soomaaliyeedna waxaan ku codsanaynaa inay channelka subscribe iyo like iyo share kana mid noqdaan asxaabta ku xiran bartan. waxaan ku hadli doonaa xaqiiqooyin badan aragtida noogu reeb commentigaaga kuna soo dhawow gacmo furan.